barnaamijka falanqaynta siyaasadda caalamka qodobada aan caawa kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah dalka Iiraan ayaa si cad u soo bandhigtay gantaalada xambaari kara hubka nuclearka, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo hubka laysarka kadib markii maanta dowlatus military ay ku sameeyeen guud ahaan wadankaasi Iiraan. Arrintan waxay ka dambeysay kadib markii Mareykanka uu dhaqdhaqaaq military uu ka sameeyay gobolkan bariga dhexe. Falanqeyn ayaanu ku sameyn doonaa. waxaan kaloo barnaamijka aynu ku soo qaadan doonaa dowladda Iiraan madaxooda hubka nuclearka oo maanta shaaciyay in ay soo gabagabeeyeen dhismaha goobtii saddexaad ee hubka nuclearka. arrintan oo warbaahinta reer galbeedka ay si gaar ah ay maanta ay uga hadlaysay. waxaan kaloo barnaamijka aynu ku soo qaadan doonaa safaaradda Mareykanka ee magaalada Jerusalem oo shaacisay in ay xayiraad ku soo rogtay dhaqdhaqaaqa shaqaalaha safaaraddaasi ka howlgala xilli shaqaalaha iyo militariga aan muhiimka ahayn ee bariga dhexe xalay ilaa iyo saaka Mareykanka uu gobolkaasi uu ka saarayay. waxaan kaloo barnaamijka aynu ku falanqeyn doonaa in ka badan muwaadiniin ka kala socda 80 wadan oo banaanbax doonaya in ay ka dhigaan toddobaadkan gudaha wadankaasi Masar iyagoo Rafah iyo Gaza doonaya inay u gudbaan. arrimahan waxaa ku soo kordhay macluumaad cusub oo waaweyn. sirdoonka Israa'iil ayaa la leeyahay waxay doonayaan in ay ku soo dhex dhuuntaan dadkan banaanbaxa dhigaya. waxaan kaloo barnaamijka aynu falanqeyn ku sameynaynaa kuna dul istaagi doonaa kooxda wax iska caabinta ee reer Yemen ayaa waxay u jeedisay hanjabaad weyn Mareykanka oo waxa ay tiri haddii Iiraan aad weerartaan innagana dagaal ayaan ka bilaabaynaa. badda cas iyo weeraradii waxaynu soo celin doonaa maraakiibta Mareykanka iyo xulafadooda ee badda cas ee dabcan maraya. xaaladda magaalada Gaza macluumaadkii ugu dambeeyay iyana waynu dil istaagi doonaa. bal marka hore barnaamijkeena aynu ku bilowno guud ahaan xaaladda bariga dhexe. waa tii maanta aan ka soo hadalnay meel sare ay maraysaa. mar walba waxaa cabsi laga qabaa in dagaal qaraar uu ka dhex qarxo dalalka Iiraan iyo sidoo kale xulafada Mareykanka uu hogaaminayo. maanta sida aan soo sheegnay taliyaha ciidamada guud ee dalkaasi Iiraan ayaa waxa uu amray in dowlatus military laga sameeyo guud ahaan wadankaasi Iiraan. dowlatuskaasi waxaa laga sameeyay badda, dhulka iyo hawada, waxaana ujeedku uu ahaa si loo muujiyo cududda ay dowladda Iiraan u leedahay in ay ka jawaabi karto weerar kasta oo uga yimaada xulafada Mareykanka uu hogaaminayo. haddaba maanta marka waxaa soo kordhay caawa war kale. Iiraan ayaa si cad u soo bandhigtay gantaaladeeda xambaari kara hubka nuclearka, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee casriga ah ee dalkan uu soo saaro iyo hubka laysarka ah, kuwaas oo dabcan dowlatuskii military lagu soo bandhigay. Iiraan waxa ay gudaha ay buuraleyda iyo kaymaha ay ka dhisatay kumanaan saldhigyo military iyo xarumaha hubka nuclearka oo aysan dabcan arki karin diyaaradaha cirka ee Israa'iil iyo Mareykanka haddii ay damcaan in ay soo weeraraan dalkan Iiraan. waxaa la ogaaday in saldhigyo waaweyn ay ka dhisan yihiin buuraleyda iyo kaymaha maadaama dalkan Iiraan uu yahay dal weyn oo aad u ballaaran isla markaana xarumihiisa militariga goobihiisa ay ka howlgalaan hubka nuclearka iyo kaymahaba ay yihiin kuwo aan la kala garanaynin oo dabcan ay ku adkaan karto Mareykanka iyo Israa'iil haddii ay soo weeraraan dalkan Iiraan in ay kala gartaan goobaha ay beegsan karaan hubka nuclearka iyo sidoo kale ay yaalaan hubka casriga ah ee dalkan dabcan uu soo saaro. Mareykanka ayaa amar ku bixiyay in dhammaan laga daadgureeyo bariga dhexe shaqaalaha safaaradihiisa halkaasi ku yaala iyo ciidamada militariga ee aan muhiimka ahayn kuwaas oo dabcan loo wareejinayo dalka Mareykanka iyo gobolka qeybo kamid ah. tusaale ahaan safaaradiisa ee magaaladan Baghdad ku taala ee caasimadda wadanka Ciraaq ayaa gabi ahaanba waxay ku dhowdahay in la xiro. saldhigyo ciidan ayaa la xiray, xaaladuna halkaasi aad bay khatar u tahay. waxaa soo kordhay caawa war kale oo sheegaya in safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Jerusalem inay ku dhawaaqday in ay xayiraad ay ku soo rogtay staafkeeda halkaasi dhaqdhaqaaqa ka sameyn kara. wakaaladda wararka ee AFP ayaa ku warantay in arrintan ay ugu wacan tahay xaaladda gobolka oo aad u sii kacsan. shaqaalaha dowladda Mareykanka iyo xubnaha qoysaskoodana waxaa laga mamnuucay in ay u safraan meel ka baxsan magaalada weyn ee Tel Aviv la yiraahdo aageeda iyo sidoo kale Jerusalem dhexdeeda. waxaa la sheegay in meel intaa ka baxsan aysan aadi karin maadaama xaaladdu ay aad khatar u tahay.
sirdoonka dalalkan bariga dhexe ku sugan haddii ay ahaan lahaayeen kuwa Israa'iil, Mareykanka iyo Iiraan ayaa laftirkooda bilaabay dhaqdhaqaaqyo iyo isu gudbinta macluumaadka. Diyaaradihii waaweynaa ee Mareykanka ee fadhiyay saldhigyada ayaa cirka loo diray, gantaaladii Mareykanka hadba dhinac ayaa loo jeedinayaa, ciidamadii badda Mareykanka dhaqdhaqaaq ayay wadaan. Xaaladdu meel khatar ah ayay taagan tahay, markasta waxaa suuragal ah in isku dhaca uu bilaaban karo. maanta marka maadaama xaaladda ay halkaasi taagan tahay ayaa madaxa hubka nuclearka ee dalka Iran waxa uu shaaca ka qaaday in la bilaabayo goob cusub oo lagu keedinayo hubka nuclearka oo ammaan ah oo aan la taaban karin, isagoo intaa ku daray in hub tayeynta uraniumta uu ka bilaaban doono goobtaasi, isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan loo hagaajin doono. kadib markii la ansixiyay qaraar ka dhan ah Iran oo ay soo saareen guddiga atomikada adduunka ninka hogaamiye Maxamed Islaami la yiraahdo oo dabcan la hadlayay madaxa atomikada Iran, waxa uu sheegay in barnaamijkan horumarinta nuclearka iyo maadadaasiba inay qatar u keeni karto wada hadallada mustaqbalka ee arrimahan ku saabsan xaaladda bariga dhexe. isagoo marka maanta oo khamiis ah hadlayay ninkan la yiraahdo Maxamed Islaami oo ka tirsan dabcan guddiga IAEA la yiraahdo, waxa uu carabka ku dhuftay in tallaabooyinkan cusub oo ay qaadayaan Iran ay jawaab u tahay tallaabooyinka siyaasadeed iyo midka maskaxeed ee hogaamiyaha dalka Mareykanka iyo saddexda wadan ee Yurub ka tirsan sida Jarmalka, Ingiriiska iyo Mareykanka, kuwaasoo dabcan u muuqda inay hadda hanjabaado iyo cabsi gelin ay isku dayaan buu yiri inay Iran ay dabcan ay tusaan, laakiin Iran ma ahan buu yiri wadan hadda u jabi karta ama dib ka soo gaari kara duulaankan iyo cabsigelintan dalalkan ka imanaya. waxa uu sheegay in goobtan cusub dabcan la dhisayo inay tahay meeshii saddexaad ee hubka nuclearka. dhawaanna waxaa soo baxday in dalkan Iran uu haysto maado uranium ah oo dabcan dhisi karta 9 madaxyada hubka nuclearka oo cusub, taasoo mar kale xiisadda gaas ku sii shubtay oo sii ololisay Mareykanka iyo xulafadiisana ay ku qasabtay dabcan in ay hadda isku dayaan in Iran ay dabcan ay carqaladeeyaan. iyadoo xaaladda marka halka ay marayso ayaa gobolka bariga dhexe dabcan sidaad ka warqabtaanba waxaa jooga kooxo kala duwan oo Iran ay taageerto oo xulafo la ah, sida kooxaha ka dagaalamaya wadamada Lubnaan, Yemen iyo sidoo kale kooxda wax iska caabinta reer Falastiin. dhammaan kooxahaasi waxay soo saareen qoraalo kala duwan oo ay sheegayaan in Mareykanka iyo tiimkiisa ay dabcan ay cawaaqib la kulmi doonaan oo ay la kulmi doonaan jawaab iyagoo taageero muujinaya dalka Iran. tusaale ahaan kooxda haddii aynu eegno reer Yemen waxay soo saareen qoraal ay ku leeyihiin heerka ugu sarreeya ee diyaar garow dagaal ayaanu ku jirnaa oo Mareykanka ka dhanka ah. haddii Mareykanka uu isku dayo bay yiraahdeen in uu dagaal uu la galo dalkan Iran, dagaal kasta oo ka dhan ah jamhuuriyadda islaamiga ah ee dalka Iran sidoo kale waa qatar weyn oo gobolka ku soo socota, annagana diyaar baynu u nahay in dalkan Iran aynu garabkiisa istaagno oo aan taageerno bay yiraahdeen. dhinaca kale kooxdan reer Lubnaan laftirkooda waxay yiraahdeen diyaar baanu u nahay, Mareykanka diyaar ma yahay bay qoraal ku soo sheegeen. kooxda reer Falastiin laftirkoodu way sheegeen oo dagaalka wali inay ku jiraan ayna sii xoojin doonaan meesha uu doono haddii uu la galo dagaalkaasi. xaaladii ugu dambeeyay ee bariga dhexe marka halkaas bay caawa ay taagan yihiin. waxaa suuragal ah maadaama xalay Mareykanka uu muwaadiniintiisa aan muhiimka ahayn ee shaqaalihiisa dabcan uu la baxay in caawa iyo beriba suuragal ay tahay in faraha la saaro oo xaaladdu ay faraha ka baxdo oo ay noqoto dagaal foolka foola. ilaa hadda marka waxaa jira dhinaca kale dadaalo waaweyn oo ay wadaan dowlado iyagu saaxiib la ah marka loo fiiriyo labada dhinac ee Mareykanka iyo sidoo kale dhinacan kale ee Iran, kuwaasoo dabcan isku dayaya in si uun xaaladan ay u dhexgalaan oo ay xaliyaan haddiiba xal dabcan la heli karo. laakiin markaad fiiriso sida loo kala fog yahay iyo halka xaaladdu ay taagan tahay waxaa la leeyahay aad uma sahlana in hadda xaaladan dabcan wax laga qabto oo dabcan la dejiyo. hay-adda atomikada adduunka ee la socota barnaamijyadan hubka nuclearka iyo wixii kale oo la midka ayaa sheegaysa dabcan in ay wado dadaalo ku aadan sidii labada dhinacba ay isugu soo dhawaan lahaayeen, walow
wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ay sheegtay inaysan sinaba u aqbali doonin in dalka Iran ay yeelato hub nuclear ah oo dabcan bariga dhexe ay ku dhaxaysato taasoo Mareykanka uu arkayo khatar weyn oo ka dhan ah jiritaankiisa iyo waliba in danihiisa bariga dhexe iyo guud ahaan tan caalamka ay halis weyn ay dabcan ay ku jirto waxaana Mareykanka uu sheegayaa sidii ay doontaba in ay ku qancin doonaan dalkan Iran in aysan hub nuclear ah aysan haysan karin marka fiiriso bariga dhexe caawa macluumaadka waaweyn ee ka imanaya dabcan aad bay walwal iyo cabsi u gelinayaan marka loo fiiriyo sida xaaladdu ay tahay markan aynu ku yara leexano macluumaadka iyaguna ku geedaaman diyaaradii dalka India ee maanta burburtay una socotay magaalada London ee dalka Ingiriiska macluumaad cusub ayaa caawa iyagana ka soo kordhaya oo baariyaashu ay sameeyeen baariyaasha dalka India ayaa ugu dambeyntii caawa shaaciyay in ugu yaraan 204 qof ay ku geeriyoodeen diyaaradii ku soo dhacday magaalada Ahmedabad la yiraahdo ee dalkaasi India ka tirsan diyaaradan oo ay saarnaayeen ugu yaraan 242 qof oo ka soo dooshay magaaladaasi ayaa ku sii jeeday magaalada London ee caasimadda waddanka Ingiriiska baariyaal ka kala socda dalalka Mareykanka Ingiriiska iyo kuwa kale ayaa dabcan la shaqeynayay baariyaasha dalkan India ugu dambeyntiina natiijo hordhac ah oo caawa soo baxday ayaa xaqiijinaysa in 204 qof ay geeriyoodeen waxaana diyaaraddaasi guud ahaan saarnaa 242 qof xaaladda gudaha magaaladaasi ayaa cirka isku sii shareertay waxaana laga cabsi qabaa in dawladdu ay la kulanto cadaadis weyn oo uga yimaada dadka reer India ee dabcan eheladoodu halkaasi ay ku geeriyoodeen iyo kuwa dabcan dhaawacmay waxaa aad cabsi looga qabaa in khasaaraha uu intaasi ka badan karo baariyaashu waxay sheegayaan in goobta weli uu ka socdo baaritaan lana doonayo in la ogaado ujeedka rasmiga ah iyo waxa keenay shilka diyaaraddaasi ugu horeynba dalka Ingiriiska waxa uu shaaciyay in 53 qof oo haystay ama u dhashay waddanka Britain in ay saarnaayeen dabcan diyaaraddaasi iyaga oo laftirkooda aysan sheegin tirada muwaadiniinta dalkaasi Ingiriiska ee halkaasi ku geeriyooday laakiin waxa la leeyahay muwaadiniinta saarnaa diyaaradan dabcan dalal kala duwan oo aad u tiro badan ayay ka soo kala jeedeen ilaa iyo hadda lama oga marka waxa keenay shilkan waxaa jira marka dawlado waaweyn iyo madaxweynayaal dabcan u soo tacsiinaya dalka India oo la qaybsanaya murugada waxaana jira kuwa dabcan sheegay in ay xaaladdu sidan ay tahay ay muujinayso mid aad khatar u ah tusaale ahaan ra'iisul wasaaraha cusub ee waddanka Canada ayaa kamid ah madaxweynaha dalka Russia iyo waliba madaxweynayaal kale oo Britain ay kamid yihiin Mareykanka iyo kuwa kale oo dabcan iyaguna muujinaya tacsi ay u dirayaan dalkaasi India dhinacan iyo Ukraine haddii aynu fiirino dalalka Ruushka iyo Ukraine ayaa caawa waxa ka soo kordhaya war kale kaasoo sheegaya in labadan wadan ay mar kale ay isweydaarsan doonaan maxaabiis labada dhinac gacantooda ku jira waxaa la leeyahay maxaabiistan tiradooda goordhow ayaa la shaacin doonaa oo labada wadanba ay shaacin doonaan laakiin waxaa la leeyahay waa wareeg kale oo isdhaafsi maxaabiis oo labadan wadan ay isdhaafsan doonaan dalka Ukraine maanta duqeymo ayaa loo geystay goobaha warshadaha hubka waa diyaaradaha droonka soo saara ee dawladda Ukraine ay leedahay sidoo kale waxaa la duqeeyay talisyo ciidamada oo Ukraine caasimadeeda Kiev ku yaalay iyo magaalada labaad ee waddankaas ugu weyn waxaa sidoo kale dawladda waddanka Ukraine la sheegay in 1380 askari oo ciidamada gaarka ah laga dilay kaliya maalintii la soo dhaafay shalay dagaaladii xooganaa ee dalkaas Ukraine ka dhacay waxa ay militariga waddanka Ukraine ay sheegayaan in khasaarahan Ruushka uu ka badbaadinayo isla markaana uu doonayo in uu argagax dadka reer Ukraine uu ku abuuro laakiin si markaad u fiiriso dhaawacyada iyo khasaaraha gaaraya ciidamada dawladda Ukraine ee bilihii la soo dhaafay aad bay u sii badanayaan sidoo kale dalka Ruushka waxa uu maanta mar kale uu hawada biyaha Baltikada uu ku tijaabiyay diyaaradaha nooca Tu-22 M3 waa nooca xambaari kara hubka nuclearka waa kuwii Ukraine iyo xulafadoodu ay sheegeen in weerarkii ka dhacay ee dalka Russia dabcan lagu burburiyay oo aysan dib dambe aysan u duuli karin marka Ruushka muusan dhihin waa been oo diyaaradahaas lama burburin shalay ayuu biyaha badda Baltika
ku tijaabiyey diyaaraddaasi tu 22 m3 waa nooca ridada dhaadheer hubkooda qaadi kara. ogow ruushka waxaa la leeyahay dalalkan saddexda ah ee baltika ku yaala waxaa suuragal ah in uu dabcan uu weeraro oo uu dabcan uu qabsado. arrintanna waxaa xaqiijinaya in dhowaan dalka Jarmalka ciidamadiisa uu usoo daadgureeyay dalka la yiraahdo Lithuania oo ka tirsan qaaradda Yurub. ujeedka ciidamada Jarmalka loo keenay halkaasina waxa ay yihiin in saddexdan wadan ee ku yaala dalalkan Baltika ama gobolkan Baltika la isku yiraahdo sidii loo waardiyeyn lahaa oo dabcan ruushka uusan usoo geli lahayn taasoo xaaladda qatar dabcan ka dhigaysa. haddana waa tan ruushka oo ciidamadiisa iyo diyaaradihiisu ay dabcan ay hadda dhulatus military ay ka sameynayaan halkan la yiraahdo Baltika marka la yiraahdo waxaa jira saddex wadan oo la isku yiraahdo ama gobolkaas ku yaala waa wadanka Estonia, Latvia iyo Lithuania. waa saddex wadan oo dabcan gaashaanbuurta NATO xubno ka ah. ciidamada Jarmalkana markii ugu horeysay muddo 10 sano ah ayaa meel ka baxsan wadankooda loo dadgurayay waana wadankan Lithuania. ujeedka loo keenayna waa in saddexdan wadan Estonia, Latvia iyo Lithuania laga difaaco ruushka haddii uu isku dayo in dalalkan uu qabsado. oo waxa ay qubarada militariga ee gaashaanbuurta NATO ay saadalinayaan marka dagaalka wadanka Ukraine uu dhinac u dhaco inay suuragal ay tahay Estonia, Latvia ama Lithuania midkood in Russia uu dagaal kale uu ku bilaabi doono taasoo macnaheedu uu yahay in gaashaanbuurta NATO iyo waliba wadankan Ruushka in ay isku dhici doonaan oo dagaalkoodii uu qarxi doono. waana sugi doonaa marka macluumaadkaasi ka soo kordha xaaladahaasi iyo waxa iska bedela dagaaladan wadankaasi ka jira. ugu dambeyntii Suudaan haddii aynu ku yara leexano kuna soo gabagabayno barnaamijkeena ciidamada militariga ee dalka Suudaan ayaa duqeeyay saacadii la soo dhaafay deegaano ka tirsan koonfurta wadankaasi oo kooxdan RSF ay ku xooggan yihiin. dhowaan diyaaradihii muhiimka ahaa ee dalkan Suudaan uu lahaa ayaa laga soo kaxeeyay garoomada waaweyn ee dalkaasi Suudaan ku yaala waxaana la keenay wadanka Eritrea si halkan ay ugu badbaadaan maadaama kooxda RSF dhawaanahan ay heshay diyaarado daroon oo casri ah oo imaaraadka iyo dowlado kale ay ka heleen kuwaasoo laga cabsi qabo in ay ku burburiyaan diyaaradaha fadhiya garoomada dalkaasi Suudaan gaar ahaan qaybta ay ciidamada militariga ay haystaan. mar ay ka jawaabayeen diyaaradahaasi laga qaaday ee Suudaan ee la geeyay Eritrea kooxda RSF waxay sheegeen in Eritrea ay dagaalka ku jirto taa macnaheeduna uu yahay in laga yaabo in RSF ay duqeeyaan dalkan Eritrea taasoo dagaalada iyo xiisadda si balaaranaysa oo dabcan soo gelinaysa dalkan Iran dalkan la yiraahdo Eritrea. xaaladda gobolkan Afrikana waxa laga yaabaa in uu dabcan uu si balaarto. marka dagaaladii maanta ilaa shalay dhacay waxaa la leeyahay khasaaro weyn ayaa wuxuu gaaray RSF oo daraasiin ka tirsan askartooda ayaa la dilay intooda badanna waa la dhaawacay waxaana khasaarahan uu yahay kii ugu dambeeyay ee kooxdaasi RSF dabcan gaaraya maadaama caasimadda Suudaan ee Khartoum laga soo saaray haddana ay joogaan caasimadda banaankeeda iyo gobollo kale oo dabcan aad uga fog caasimadda wadankaasi Suudaan. macluumaadkan ayaa daawadayaal ugu waaweynaa dhacdooyinka waaweyn ee ka taagan caalamka. si aad u hesho kuwan iyo kuwa kale fadlan subscribe saaro channelkan oo la soco aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin.